saraakiil ka tirsan nisa oo laga celiyey inay ka dhoofaan garoonka muqdisho sida ay xaqiijinayaan wararka laga helayo madaarka aadan cadde international airport ee magaalada muqdisho. mas-uuliyiin ka tirsan kuwa ammaanka ee garoonka diyaaradaha ayaa toddobaadkan safar gudaha iyo dibadda ah ka celiyey 2 sargaal oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya. xogaha la helayo ayaa sheegaya in saraakiisha loo diiday inay ka dhoofaan garoonka muqdisho ay kala yihiin Cabdilaahi Kulane oo loo yaqaano Kulane Cheese oo ku wajahan gobolka Gedo iyo sargaal magaciisa lagu sheegay Wadnaqabad oo isaguna safar u ahaa dalka dibaddiisa. Wadnaqabad ayaa la sheegay inuu ku dhoofiyey baasaboor shisheeye oo ah dhalashadiisa labaad, waxayna labada sargaal qayb ka yihiin shakhsiyaadka ay dacwadda ka gudbiyeen ehelada Ikraan Tahliil Faarax oo ahayd gabadh ka tirsanayd hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee la waayey, taasi oo uu ka dhashay khilaafka sii daba dheeraada ee u dhexeeya ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Soomaaliya. si rasmiya looma oga safarkoodu waxa uu salka ku hayo, hase yeeshee waxaa soo baxaya warar sheegaya in ay baxsad ahaayeen maadaama ay wajahayaan eedo la xidhiidha afduubka iyo dilka gabadha Ikraan Tahliil Faarax oo ka tirsanayd hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ee loo yaqaano NISA. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa amray in la baadho saraakiisha lagu tuunsan yahay in ay ka dambeeyeen dilka Ikraan Tahliil Faarax ilaa amar dambana aanay Muqdisho ka bixi karin. ra'iisul wasaare Rooble oo horay u ballan qaaday in cadaalad la marin doono kiiska Ikraan Tahliil Faarax wuxuu diiday qorshe uu soo jeediyey madaxweyne Farmaajo oo ahaa in diyo la siiyo qoyska Ikraan Tahliil isla mar ahaantaana kiiska halkaasi lagu xidho oo aan la baadhin. dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey ee doorashada golaha aqalka sare ee ka dhacaysay Jowhar. magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle waxaa saaka ka socota qabanqaabadii ugu dambeysay ee doorashada aqalka sare, taas oo maanta ka dhacaysa magaaladaasi oo sidoo kale xarun u ah gobolka Shabeellada Dhexe. ilaa 27 musharax ayaa ku loolamaya kuraasta Hirshabeelle ee aqalka sare, kuwaasi oo ku tartamaya 8 kursi ee uu maamulkaasi ku leeyahay golaha aqalka sare. musharaxiinta ayaa xalay kulankii ugu dambeeyey la qaatay xildhibaanada golaha wakiilada ee dowlad goboleedka Hirshabeelle iyaga oo kala hadlay arrimaha doorashada iyo halka ay marayaan. guddida doorashada ee Hirshabeelle ayaa dhinaca kale xusay in kaliya maanta la qabanayo doorashada 3 kursi oo ka mid ah 8 kursi ee taala magaalada Jowhar. kuraasta qaar ayaa isha lagu hayaa kuwaasi oo ay ku tartami doonaan siyaasiyiin saameyn leh. waxaana ka mid ah kuraastaasi kursiga uu ku fadhiyo Muuse Suudi Yalaxow oo mar labaad doonaya in dib loo doorto, hase yeeshee waxaa haatan kula tartamaya Cabdulaahi Sheekh Xasan, Axmed Xasan Cadow oo loo yaqaano Daaci iyo Dr. Xasan Cadey Cali. sidoo kale kursiga xiisaha leh waa mid uu ku fadhiyo 4 sano ee la soo dhaafay Dr. Cismaan Maxamuud Maxamed Dufle oo mar kale isa soo sharaxay, isna waxaa kula tartamaya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan iyo Raaga Xasan Cusmaan oo loo yaqaano Xuud. dhammaan musharaxiinta tartamaysa ayaa shalay khudbada ka jeediyay xarunta baarlamaanka ee Hirshabeelle iyaga oo ka hadlay taariikhdooda iyo waxqabadkooda ay doonayaan in lagu doorto. doorashada Hirshabeelle ayaa ah mid xasaasi ah, waxaana ay musharaxiintu u tartami doonaan si daafuran iyada oo halkii kursi ay u sharaxay yihiin ugu yaraan hal, ugu badnaana ilaa 6 musharax. wararka kale ee doorashooyinkana waxaa ka mid ah guddida doorashooyinka oo dalab xasaasi ah u gudbiyey ra'iisul wasaare Rooble. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa qaabilay xubno ka tirsan guddida doorashooyinka heer federaal isagoo oo kala hadlay arrimaha doorashooyinka ee 2021 iyo sidii loo dardargelin lahaa. ugu horreyn guddida doorashooyinka dalka ee heer federaal ayaa ra'iisul wasaaraha u gudbiyey warbixin ku aadan halka ay marayaan doorashooyinku iyo dardargelintooda. sidoo kale guddida ayaa Rooble u gudbiyey codsi gaar ah oo la xidhiidha fududeynta howlaha doorashooyinka ee bilowga ah. qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagaga hadlay kulankan, waxaana lagu sheegay in uu Rooble ka jawaabayo codsiga ka yimid guddida doorashooyinka. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa la kulmay xubno ka tirsan guddida maamulka doorashooyinka heer federaal oo warbixin ka siiyay halka ay marayaan howlaha doorashadu, iyada oo ra'iisul wasaaruhu ka jawaabay codsiga la xidhiidhay sidii loo fududeyn lahaa howlaha doorashada ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha. kulankan waxaa ka horreeyey shir kale oo uu ra'iisul wasaaruhu la yeeshay ururada bulshada rayidka ah, kaas oo lagaga hadlayay doorashooyinka iyo xiisadda ka taagan dalka. doorashooyinka Soomaaliya ayaa haatan maraya meel xasaasi ah, waxaana ay maanta Hirshabeelle qabanaysaa kuraas ka mid ah kuwa aqalka sare ee magaalada Jowhar. wararka dibaddana waxaa ka mid ah Maraykanka oo shaaciyay khatar uga iman karta dalal ay ku jirto Soomaaliya. sirdoonka qaranka Maraykanka ayaa shaaca ka qaaday
in ay jirto cabsi ay ka qabaan khatar amni oo kaga iman karta dalal ay ku jirto Soomaaliya, balse waxaa warbixinta lagu sheegay in cabsida koowaad ay tahay kooxda Daacish ee ka dagaalanta Afghanistan. Arfil Henis oo ah agaasimaha sirdoonka qaranka ee Mareykanka ayaa hadalkan ka sheegtay shirka sanadlaha ah ee amniga sirdoonka ee 2021 oo lagu qabtay magaalada Washington. Agaasimaha oo aaladda fogaan aragga kaga qayb gashay shirkaasi ayaa sidoo kale shaacisay magacyada dalalkaasi, waxaana ay kala yihiin Soomaaliya, Yemen, Syria iyo Ciraaq. Cabsida ugu sarreysa ee argagixisada ee xilligan ma aha Afghanistan, balse waxa aan aad u arkaa in ay khatar ka soo fool leedahay dalalka Soomaaliya, Yemen, Syria iyo Ciraaq iyo kooxda Daacish, ayaa agaasimaha sirdoonka qaranka ee Mareykanka ku tiri hadalkeeda. Sidoo kale waxa ay intaasi ku dartay in dowlad ahaan ay si gaar ah isha ugu hayaan afartaasi dal si looga hortago halista kooxaha argagixisada. Ugu dambeyntii, agaasimaha ayaa sheegtay in ay si aad ah ula socon doonaan dhaqdhaqaaqyada kooxda Daacishta Afghanistan si looga hor istaago fulinta weeraro horla oo ay geystaan. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo hore Daacish u sheegatay weeraro qaraxyo ah oo lagu qaaday ciidamada Mareykanka ka hor inta aanay ka bixin Kaabul. Si kastaba ha ahaatee, Soomaaliya ayaa marka la eego Mareykanku waxa uu ka fuliyaa howlgallo duqeymo ah oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalantay gudaha Soomaaliya.